değişim ve dönüşüm başlıyor. Hayatın, ticaretin, alışverişin en önemli anahtarı ulaştırma alanında yapılıyor. waddo uu dhererkeedu yahay 330 kilomitir 225 mayl oo caasimadda Ankara ku xiraya gobolka dhexe ee Nigde ayaa loogu magac daray waddadii caqliga lahayd uguna qurxoonayd dalka Turkiga waxaana xariga ka jaray waddadan weyn madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isaga ayaana noqday qofkii ugu horeeyay ee baabuur ku wada gacantiisa waddadaasi cusub. jidkani waxa uu ku shaqeynayaa tiknoolajiyada casriga darawallada isticmaalaya wadadan waxa si hordhaca loo ogeysiinaya duruufaha hadba soo kordha ee keeni kara halis ammaan sida shil xaaladda isbedel cimilo ee halista keeni kara xayiraad iyo wixii la mid ah inta ay wadada ama ay jidka ku jiraan darawalladu waxa wadadan ku dhinac yaala kaabayaal kale oo caawinaya oo dhan 1.3 milyan mitir waxaa sidoo kale halkaas laga helayaa 4.7 milyan oo cagood oo internet ah oo wadadan ku xiran gaar ahaanna internet badeedka la yiraahdo fiber optics sidoo kale waxa uu leeyahay 500 oo ah qalabka wax lagu ogaado 9 meelood oo saadaasha hawada ah 208 kaamiro oo shilalka sheega 335 saldhig oo ah agab iswada oo gaadiidka maareeya iyo 687 seerfar oo wax gudbiya ama wax sawira. jidka Ankara Nigde ayaa dhereeran 330 kilomitir oo ay ku jiraan 275 oo ah jidweynaha laftiisa iyo 55 kilomitir oo ah isgoysyo iyo buundooyin si toos ah ugu xirmaya jidad kale. wuxuu jidkani ku dhawaad kala bar soo dhimaya masaafadii ay isku jireen labada gobol ee uu haatan isku xirayo oo awal ahayd 4 saacadood iyo 14 daqiiqo loo kala socon jiray balse haatan waxa ay wadadani ku soo koobtay in loo kala socdo 2 saacadood iyo 22 daqiiqadood oo kaliya. mashruuca jidkan lagu dhisay ayaa sidoo kale Ankara ku xiri doona sida gobolada Mersin waxaana dadka u baaqan doona sida la sheegay 12.551 milyan oo litir. dawladda Turkiga ayaa 200 oo mashaariicda kaabayaasha wadooyinka oo kaliya ku kharash garaysay lacag dhan 767.5 bilyan oo liraha Turkiga ah oo u dhiganta in ka badan 103 bilyan oo dollar. Demiryolu taşımacılığında ülkemize